dhammaan waa idin salaamo daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii gobolada Soomaaliya ee janalka Dhimbilisa. Maantana waxaan kusoo qaadan doonaa gobolka Jubbada Dhexe. Horey waxaan ugu qaadanay gobolka Jubbada Hoose oo ahaa muuqaalkii koobaad. Waad ka daawan kartaa janalka adigoo dib uga raadinaya. Maantana waxaan ku falanqayn doonaa gobolka Jubbada Dhexe taariikho aan kasoo diyaarinay. Gobolka Jubbada Dhexe waa gobol ku yaala koonfurta Soomaaliya. Magaalo madaxda gobolkan waa Bu'aale. Gobolkan wuxuu xuduud la leeyahay gobolada kala ah Gedo, Baay, Jubbada Hoose, Shabeellada Hoose iyo Badweynta Indiya oo uga taala dhanka bari. Magaalada Bu'aale waa caasimadda gobolka Jubbada Dhexe. Gobolka Jubbada Dhexe waxa uu qani ku yahay xoolaha nool iyo beeraha, waana gobol leh dhul aad iyo aad ugu fiican beeraha iyo wax soo saarka. Gobolkan waxaa dhex mara webiga Jubba oo biyo siiya xoolaha nool iyo beeraha. Jubbada Dhexe waxaa dega dad Soomaaliya oo isjecel. Gobolka Jubbada Dhexe waxa uu ka kooban yahay 3 degmo oo kala ah Bu'aale, Saakow iyo Jilib. Daawasho wacan iyo sawirada degmooyinka gobolka Jubbada Dhexe, waxaana ugu horeysa degmada Bu'aale. Degmada labaadna waa degmada Saakow. Degmada saddexaad ee gobolka Jubbada Dhexe waa Jilib. Daawasho wanaagsan. Sida aad u daawatay aad iyo aad ugu mahadsantahay daawade. Like saar muuqaalkan lana soco gobolada xiga ayaan kusoo qaadan doonaa dalka ilaa aan ka dhamaystirno 18 gobol ee dalka hooyo. Daawade maxaad ku taqaanaa gobolka Jubbada Dhexe? Weligaana ma tagtay? Waana su'aasha barnaamijka.